madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda gudaha u soo galay hoteelka Dekale ee magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isagoo ka qayb galaya kulankii qadada ahaa ee uu markaasi u sameeyay madaxda golaha samata bixinta iyo guud ahaan golaha mustaqbalka Soomaaliyeed sida aad u jeedaan daawadayaal hadda ayuu gudaha u soo galay madaxweynuhu waxaana uu ka qayb galaya kulankan qadada ah waana shakhsiga ugu dambeeyay ee hadda soo gaaraya hoteelkan Dekale oo uu ka dhacayo shirkan qadada ah ee waliba uu la yeelanayo madaxweynaha dowlad goboleedyada Puntland Jubaland oo lagu daray golaha samata bixinta Soomaaliyeed oo dhammaantoodba golaha mustaqbalka Soomaaliyeed la isugu yiraahdo waana kulankii ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay isku arkayaan sida muuqata daawadayaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda gaariga ka degay iyadoo waliba xubnaha la socda ay xilligan gudaha hoteelka sii galayaan waxa sidoo kale jira saaxiibayaal in uu kulan la qaadan doono xubnahan wixii ku soo kordha halkan ayaad kala socon doontaa saaxiibayaal taniya sanadkii 2024 Soomaaliya waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay adeegga bacriminta ubadka ee IVF kaasoo noqday fursad caafimaad oo cusub oo ay ka faa'iideysteen lamaana Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hore u qasbanaa inay dibadda u safraan waxaa ugu mahadcelinayaa isbitaalka Marwo Fertility shaqooyinka ay qabteen dalka dibadiisa lagu qaban jiray inay dalkan ugu keeneen aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin Marwo Fertility Center ayaa hormuud ka ah hirgelinta adeeggan casriga ah iyadoo ujeedadeedu tahay horumarinta caafimaadka taranka iyo yareynta caqabadaha haysta qoysaska Soomaaliyeed isbitaalka Marwo oo la jaanqaadaya tiknoolajiyadda casriga ah waxaa ka go'an ka qayb qaadashada horumarinta caafimaadka taranka ee dalka ujeedooyinka guud in la xaqiijiyo helitaanka adeegyada IVF ee casriga ah gudaha dalka in kor loo qaado wacyiga bulshada ee caafimaadka taranka in la yareeyo baahida dibadda looga safro adeegyada bacriminta in la dhiso kalsoonida bukaanada iyo xirfadlayaasha caafimaadka natiijooyinka la filayo kordhinta tirada lamaanayaasha ku guuleysta IVF bulsho wacyi badan oo fahamsan caafimaadka taranka Soomaaliya oo noqota xarun lagu kalsoon yahay oo IVF ah kor u qaadida sumcadda Marwo Fertility Center Marwo Fertility Center waxay u taagan tahay rajada qoysaska horumarinta caafimaadka iyo mustaqbal taran oo caafimaad qaba iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyadda casriga ah xaruntu waxay sii xoojin doontaa doorkeeda hogaamineed ee caafimaadka taranka Soomaaliyeed